علمي وقلي هدي إلى كويد ما علمي والدنا الله يفرسوا الجلاء وقلي codad baa laygu xujiyay maalinkii fiidiyowga laga duubay codadkaasita inaan duubo oo saas ku hadla hadda way isoo laabteen waxay dhaheen lacag ma hay bay dhaheen codadkii banaanka soo dhigay laakiin maanta wixii ka dambeeya aniga cilmi iyo dadka taageersanba tubaaka igay waxa jira kuwo ku dhiiradayba inay magaca sameeyaan oo ilaa iyo hadal laay caawi hebelka mega marketing social media saameyn kula marketing waa la tufay tubaako noqday Soomaalidu waa tuftay kana dhimalaha sidii oo kala waa noqonaya warkiisu waa cadaada Soomaaliya hawr waa qalacna hadda warkiisu waa cadaada Soomaaliya waa la tufaya video ka taasas loo soo dhiga si uu soo Ayub Kaale baaya aniga wallahi oo billahi oo talaha Ayub Kaale 200 kun lacagta America waan ku bixinaya noloshiisa waan baabi'inaya السلام عليكم صاحب يال مالك استوى جوكتان سكستو مقالكي مقالكي قدين سو غاريبا halka diga daawanaysan waa channelka Shaacir Sheekay laakiin Shaacir Sheekay ku soo dhawaada barnaamijka dalaynta bulshada oo idinku hayo bum waa taa saaxiib yaal inta barnaamijka ugu galin fadlan subscribe sar channelkayga sidoo kale like la muuqaalkan si uu gaar saaxiibo badan waa taa hadda saaxiib yaal muuqaalka maanta idin hayo waa muuqaal u baahan in dad badan oo Soomaaliyeed ay ogaadaan sidii ay digtoonaadaan halista faraha badan ee lagu hayo diinteena suuban dhaqankeena iyo waliba Soomaalinimadeena ninkan muuqaalkiisa idin muuqdo waxa lagu magacaabaa cilmi waa aaminsanahay in dad badan oo idin kamid ah garanayaan islaam baa laga hayaa waa lagu soo diray ku soo diray ninkan horta markii hore sida dad badan aan kamid ahay ee aaminsanaayeen waxay weysteen nin iska masaakiin ah oo social media iska isticmaala laakiin dad badan ay ku riixayaan laakiin Soomaalidu waa ma badan tahay hadda korba nin dhagoole baa waxa la yiri markaad gardaran tahay maxaad ku garataa markaas buu yiri dadka dhan baa faraha igu soo fiiqasaas igu tagtaan ninkan oo TikTok iyo meelahaas dhalinyarta leefka ka gasha ee iska xamaasha habeenkii muuqaalo la sameyn jiray ay dad badan ka aaminsanaayeen inuu yahay nin maskiin oo si gaar ah loo buusayo laakiin geelo waxa la yiri markaad ciin daaqdo ayaa lagu yaabaa ninkan markii uu caan noqday oo horta balaayo soo raasay waxa ka sii darneed markii sunta ku jirta iyo wasaqnimada iyo dulinimada asila fahantiisa ku koobneed markuu dadkii la dhaxyimid oo isku dayay inuu dadka si gaar ah u sumeeyo muuqaalo iyo codad markii dad badan maqlaan ay yaabi doonaan afariiri doonaan ayaa ninkan laga keenay aniga ahaan ma jeclayn markastoo aan kaamirada hor imaado ama YouTube aan ka hadlo ama meel kale aan ka hadlo markii arrimahan oo kala dhacaan ama dadka muuqaalo u bareefad ah la soo qarxiyo ama waxyaabahaas la keeno waxaan jeclahay anigoo aan wuxuu soo bandhigay ama xogta soo bandhigay in si markaas waxay jiraan aga hadlo laakiin tan ina in la wadaago waajib bay ugu tahay waayo waxa jirta dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo hadda soo kacaya social media waxyaabo badan ka fahansaneen waxa laga yaabaa dad badan oo aan garan galbal sameeynin oo wali aaminsan in waxaan yihiin dacaayad ama qofkan waxa laga sameeyo aan xaqiiqada runta ogaanin ayaan rabaa in aan ninkan halista oo dadkana Soomaaliyeed isoo kala dhalinyartaba ku hayo in la wadaago laakiin marka hore maxaa ninkan ku dhacay oo aadan ogeyn علمي وقلي هدي إلى كويد ما علمي والدنا الله يفرسوا الجلاء وقلي شكني تالا بابجوا لغاش سينيا أبو سبحان الله Soomaalidu waxay tiraahdaa mar daga Allah hadgo mar labaad daga si aniga is daga haddaba ninka waxaas wasaqda badan ka samaysan ee isagu qarsan inuu yahay wasaq maanta wixii ka dambeeya qofkii Soomaaliyeed ee TikTok live kala soo noqon lahaa ama muuqaaladiisa ku garabsii lahaa inay meel fog gaaraan adiga oo u jeeda halista uu ninkan dhalinyarta iyo diinteena dhaqankeena ku hayo qofkii dambe ee live la saaranaya la arko ama muuqaaladiisa garab weyn ka geysanay meel ku qorto waa tuka xagayjo waxaan u baahan yahay qofkaasi in la iska qabto codad baa laygu xujiyay maalinkii fiidiyowga laga duubay codadkaasita inaan duubo oo saas ku hadla hadda way isoo laabteen waxay dhaheen lacag ma hay bay dhaheen codadkii banaanka soo dhigay videoga Snapchat baa la soo dhigay aniga hadda lees ceebeen waxba la maqaal ku magaalo qof baa la soo ceebay laakiin maanta wixii ka dambeeya aniga cilmi iyo dadka taageersanba tubaaka igay waan tufay wax shaqaana kuma lihi muuqaaladiisa dambana daawo maayo digniintana xarab inay gaarto laakiin waxa la yaab leh oo aan aniga aad ula yaabay markii arrintan ay baraha bulshada qabsatay waxa la yiri balaaye ka indhacada wuxuu badahaba muuqaaladan ee waxaan iga baahan waxa keenay nin la yiraahdo Ayub Kaale oo social media isticmaala
ayaantan dambana lagu amaanayo inuu noqdo qof wanaagsan maadaama qabyaaladii iyo wixii lagu eedan jiray uu ka har wuxuu yiri in ka badan 200,000 oo dollar baan ku bixinayaa inaan noloshiisa baabi'iyo muuqaalka xiriir la daawo video ka taas loo soo dhiga si u socda ayub kaale baa baayaya aniga wallahi oo billahi oo talaha ayub kaale 200,000 lacagta America waan ku bixinayaa noloshiisa waan baabi'inayaa si fiican ninka ka dambeeyay baa aniga nasaan la yeelay ayub kaale oo ahay si fiican Soomaaliya way maashaati aniga waan iga tagaya aniga waxaan leeyahay waxaan su'aal leeyahay dad baa wacday aqaylini ha hadlin lawyer baa wacday ninka haduu Kenya xataa uu jooga la dhaw ninka uu koy tageena si fiican iska dhaaf 200,000 dollar kumaan kun oo dollar hadii lagu bixiyo in lagugu dhibaateeyo adigoo ka hortagaya qof noocaasa ama qof waxyaabahaas oo kale Soomaalida inuu sameeyo isku dayaya horta ajir baad keenaysaa hadaad dhimatana ilaahay xaqiisa jannadka gelaysaa hadaad Soomaali u dhibaataas kugu soo gaartana sharaf baad xaqiida kale da ninkan aa u jeedin waa sun marka idin leeyahay waa sun nin la yiraahdo Abu Tariika oo ciyaaryahan caan ahaa ay sheekadiisa toddobaadkan baraha bulshada aad u haysatay inta badan warbaahinta carabta aad u tibinaysay waxa nin ciyaaryahana oo meel badan ka soo ciyaaray lacag fara badan haysta xitaa mararka qaar lagu eedeeyo argagixiso ku lug leeyahay si uu adag yahay diintiisa marka qofku diintiisa uu ku adadkaado inta badan dambiyo iyo waxba argagixisa tahay dusha laga saaraa Abu Tariika TV buu meel cad inta soo fadhiistay wuxuu ku yiri Premier League ama Champions League ama ciyaaraha caalamka socda markii la ciyaarayo kubadaha iyo calaamada iyo waxa jirta astaamaha dadka jinsiga isku galmadaan dadka u heeliya ba astaamaha dhalinyarta loo isgaliya oo dadka lagu dhiirigeliya wuxuu dhahay calaamada iyo meelahaas lagu soo bandhigaa waan xaqaa jira marka wuxuu dhahay waa in dadkan astaamahooda iyo calaamadahooda iyo xiliyada ay dabaaldegaan iyo dadkan qoomuluudka ah la joojiyaa oo laga hortagaa adduunyadii oo dhan dadkii reer galbeedka kala bar way ku kaceen ba waxay dhaheen maxuu saas u sameeyay waa in la ganaaxaa waa in kan lagu sameeyaa waa in TV-gii oo analysis ka ahaa ay ka jeediyay warbixinta shaqada laga joojiyaa maxaa waxaas dhan loo sameeyaa waxa loo sameeyaa in dadka Soomaaliyeed iyo dadka Islaamka iyo dadka adduunyada muslimka Soomaali kaliya ninkaas ma daawatay adduunyada laga daawaday ciyaaraha daawatay Soomaali kaliya ma daawatay in la sameeyo macnaa waxaan waa wax usgiris marka cilmi in la soo diray wahay qaasatan Soomaali loo soo diray laakiin waxa nagu qalday ooyin beena iyo is beena iyo maskiinan hay iyo aniga saan ma ihi iyo shakada waa ka tagtay waxa loo baahan yahay qof kasta oo Soomaaliyeed isaga kaliya xitaa ma waxa jira kuwa badan oo caan raadisa oo rabi lahaa inay caan noqdaan waxa jira kuwa ku dhiiradaba inay magac sameeyaan oo ilaa iyo hadal laay caaw hebelka mega marketing social media saameyn kula marketing waa la tufay tubaako noqday Soomaalida waa tuftay kana dhimalahan sidii kale oo noqonaya warkiisu waa cadaada Soomaaliya awal waa qalacna hadda warkiisu waa cadaada Soomaaliya waa la tufaya wax uu yahay male hadii uu kugu hayay saameyn ama u aragtay qof masaakiina aniga sidoo kale aan u arkay laakiin maanta wixii ka dambeeya naahnaan cilmi maanta wixii ka dambeeya cilmi dhagaygu ma maqli karaa baani laakiin waxa xaqiiqo ah ninkan maanta ka hor inuu ahaa sun dadka Soomaaliyeed ama dhalinyarta ku lamaansan laakiin sunta waa la iska qabtaa waan la iska miiraa maanta wixii ka dambeeya cilmi aad baa ma daashada muuqaalka waa shaash sheegay saayo muuqaal